مولانا أبو راي إسلامي منو مرو محمد نصو ديرو هذا ما هدا إسكالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا الجنة بربكم، تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، إلهي بانكم هذينينا bishan barakaysan run ahaantii waa mawsimu lxasanaat. qolo walba mawsim bay leedahay, ganacsatadu mawsim bay leedahay. xilliga ay dadka ganacsatadu ay lacagaystaan waa xilliyada maaragtaan ee ciidaha. siyaasiyiintuna waxay leeyihiin mawsim, iyakuna siyaasadooda waxay meelaha la qeylqeyliyaan marka doorashadu ay soo dhowaato. qolo walba badeecadda ay haysato xilli ay dadka u bandhigta ayaa jira. tujaartu badeecadooda xilligan ay soo saaraan. siyaasiyiintuna badeecadooda waxay keenaan xilliga siyaasaddu ay dhowdahay, doorashadu ay soo dhowaato. ayuu nin walba fikraddiisa, hadday qaldan tahay hadday saxsan tahayba, dadka marka ayuu u bandhiga ayuu ka iibiyaa. waa kuwa meelaha ka qeylqeyliyaad aragteen. dadka xoolo dhaqataduna iyakuna mawsim bay leeyihiin. markay maqlaan ciiddii baa soo dhowaatay, khaasatan ciidda carafo ama xoolihii wadannada carabta loo dhoofinayay baa la furay, markay maqlaan iyakuna badeecadooda markaasay bannaanka soo dhigaan. bisha ramadaanna waxa weeyaan waa mawsim iyadana la yidhaahdo dadka ilaahay doonaya inay u dhowaadaan, dadka doonaya aakhirada inay camirtaan, dadka doonaya ilaahay inay raalli geliyaan. mawsimkoogu iyakuna waa bisha ramadaan weeyaan. laanna waa bil aada u barakaysan weeyaan, oo ilaahay baa casa wajalla qur-aankiisa ku sheegay inay bishani ay bilaha ka duwan tahay. waxay kaga duwan tahay bilaha soonka, waxaa laga dhaxlaa alla ka cabsi, taqwad. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay qur-aanka kariimku bisha ramadaan dhexdeeduuna soo degay. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay habeen leylatulqadriya bay xambaarsan tahay ku wadaa. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay waa bil habeen walba ilaahay casa wajalla uu leeyahay addoommo uu naarta ka xoreeyo. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay ducada muuminka ayaa la aqbalaa buu nebigu yihi. xilliga uu afturku dhow yahay, saa'imku waxa uu leeyahay duco la aqbalay xilligaa ducaysta oo baahidiina ilaahay u sheegta. bishani bilaha waxay kaga duwan tahay waa kii nebigeenu lahaa calayhi salaatu wassalaam: cumratu fii ramadaana tacdilu xajatan maciya. bisha ramadaan dhexdeeda ninka cimraysta, cimrada bisha ramadaan dhexdeeda la cimraysan waxay u dhigantaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xaj aniga layla xajiyo oo kale u dhigantaa buu rasuulku yidhi.
bishani bilaha waxay kaga duwan tahay oo nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam ramadaan haddii uu yimaado albaabada naarahana waa la xidhaa albaabada jannadana waa la furaa maradatu shayaatiinna waa la xidhaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ramadaan haddii uu yimaado albaabada naaraha waa la xidhi oo waxaa laga fahmayaa xadiiska waa maxay 11 bilood oo kale oo dhan naarta albaabadeedu way furan yihiin oo way iska ballaqan yihiin halka jannadana uu nebigu yihi ramadaan haddii uu yimaado ayaa albaabada jannada la furaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bimacnaa waa maxay kii janno doonayow albaabadii jannada waa lagu furay jannada soo gal oo haddii bishaas aad ka faa'iidaysatid waxaad ehel u noqonaysaa inaad noqoto dadka jannada galaya jannada loo furay allah inaga dhigo wasiiqa aladiina ittaqow rabbahum ila aljannati zumara xataa idaa jaa'uuha wafutixat abwaabuha waqaala lahum khazanatuha salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin wasiiqa aladiina ittaqow rabbahum ila aljannati zumara ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay fii awaakhiri suurati zumar dadka mutaqiinta ee adduunka dusheeda ilaahay ka baqayay jannada xaggeega ayaa degdeg si degdega loogu kaxayn doonaa baa ilaahay yidhi iyaka oo maaragtana koox u socda siday u kala fadli badnaayeen iskugu acmaal ahaayeen ayaa la iskugu xidhxidhayaa deedna jannada xaggeega ayay malaa'igtu u kaxaynaysaa markay jannada iriddeeda hor yimaadiin ayaa ilaahay yidhi wafutixat abwaabuha wowgaasi wuxuu macnaynayaa uu sheegayaa albaabada jannadu ma furnee markay iridda jannada ay soo joogsadaan baa albaabada loo furayaa wa qaala lahum khazanatuha malaa'igtii jannada ilaalinaysana waxay odhan doonaan salaamun calaykum tibtum fadkhuluuha khaalidiin nabadgelya dushiina ahaatee albaabadii jannadana waa ka hadda laynii furee waad wanaagsanaateeno waad mutaysateen jannade gala oo jannadii waa taasoo ku waarya baa la odhan doonaa waa tahay jannadii allah inaga dhigo marka ramadaan haddii uu yimaado buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam albaabada jannada ayaa la furayaa bimacnaa 11 bilood oo kalena jannadu albaabadeedu way xidhan yihiin limaada waa daar loogu talagalay in dadka mutaqiinta lagu abaalmariyo inna lilmuttaqiina mafaaza xadaa'iqa wa acnaaba wa kawaaciba atraaba wa ka'san dihaaqa inna lilmuttaqiina fii jannaatin wa cuyuun ilaahay qur-aanka uu kaga warramay markaa dadka adduunka dusheeda ilaahay kaga baqeen mutaqiinta alla ka cabsiga leh inay jannada ay mutaysteen baa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay marka haddii uu ramadaan yimaadana waxa uu nebigu leeyahay albaabadii naarahana waa la xidhayaa oo 11 bilood oo kale naartu albaabadeeda way furnaydo bimacnaa dadka naarta ku hoobanaya badan weeyaan walciyaadu billah dadka dhimanaya ahlu naarka ayaa ka tiro badan ahlu jannaha dadka jannada galayana way kooban yihiin abadna ilaahayna hay naga dhigo kuwa jannada mutaystay ee naxariista ilaahay ku mutaystay marka bishan maadaama albaabadii jannada lagu furay dee waxaa ku hadhay in lagu yidhaahdo soo gal si aad ku soo galaysaa markaa jannadii waxaad ku soo galaysaa acmaashii jannada aad ku mutaysan lahayd baa bishan in la qabto ayaa habboon markaa أعمال الجنة mid dhawaaqa xagga ilaahay ka dhawaaqayo odhanaya yaa baaqaya alkhayri aqbil markii khayrka jeclaayo khayr doonow bishii khayrka waatan ku soo qaabishay adiguna soo qaabil buu ku leeyahay ha ka jeesan aqbil bimacnaa waa maxay iyadiina way timid adiguna ku soo noqo oo ka horkaalay isku yimaada wayaa baaqiya shari aqsir buu leeyahay kii dembiga iyo macaasida iyo fujuurka iyo dembiga iyo sharka badnaayow bishani maaha bishii ilaahay la caasinaye ka gaabsa buu leeyahay isaguna ka gaabso ka daa ajarkuna waa mudaacaf macaasiduna waa mudaacaf ajarku ajaradii hore uu ka wan yahay sharka iyo dembi iyo xumaanta aad samaysay bisha ramadaan dhexdeedana dunuubtii hore iyaduna way ka dembi weyntahay ugu
malagaasaa marka odhanaya warkii khayrka doonayo waatan bishii khayrku iyo soo qaabil soonka soo qaabil qur-aan akhriska soo qaabil salaada taraawiixda soo qaabil zakada iyo sadaqada la bixideeda soo qaabil qaraabada xidhiidhinteeda soo qaabil sukuudka badso sukuud carabkaaga ilaali iska wasakhayn soonkaaga bishani waa bishii khayrka dadka ahlullaahiga ee muuminiinta bishani waa bishii khayrka ka faa'iidaysanayeene khayrka soo qaabil buu leeyahay waa waqti qiimo badan weeyaan bisha ramadaan waqtiguna waa tharwada qofka bini aadanka xoolahaaga iyo waqtiga ayaa xoolaha ka qiimo badan baa la yidhi dhaqaalahaaga ood ku ciyaartaa waxaa ka dhib badan waqtigaaga ood ku ciyaartaa ka dhib badan lacagta haddaad maanta daadaadisid oo si malaayacni ay kugu dhaafto berritoola waxaa laga yaabaa lacag intaa in ka badan inuu ilaahay meel kale kaa soo geliyaba laakiin daqiiqadda maanta kaa tagtay kugu soo noqoni mayso maanta hadday ku dhaafto berri maanta ma soo noqon doonto ogow sabt jimco weeyaan maanta jimcaha hadduu kaa tago jimcaha soo socda jimcihii tagay maaha waa jimco kaloo fresh oo cusub weeyaan waagii barye buu yihi xasan albasri raximahullah waagii baryaba cadceeddu saddex eray bay tidhaahdaa ana yowmun jadiid anu maalin jadiida ayaan ahay oo cusub wa calaa camalika shahiid camalkaad qabanaysana marag baan ka ahay oo markhaati baan ka ahay ilaa qiyaamahana anagu kugu soo noqoni maayo waxaad qabsataad helaysaaye iga faa'iidaysa bay tidhahdaa maalintu ina alleyla waannahaar yacmalaani fiika facmal fiihima maalinta iyo habeenku aday kaa go-an yihiin adiguna ka faa'iidayso oo waqtigaaga ha dayicin bisha ramadaan ilaahayna soo gaadhsiiyey innakoo nabad hayna oo caafimaad hayna oo amni arsaaqadna hayna oo dad muslimiina weliba ilaahay inaga dhigay inaan ilaahay ugu mahadino weeyaan laa nudayic salaf waxay bisha ramadaan way sugi jireen bisha ramadaan markay ilaahay uu la kulansiiyena waxay tamanin jireen sanadka oo dhan in ramadaan looga dhigi lahaa bay tamanin jireen laanna waa bishii dembi dhaafka waa bishii toobadkeenka waa bishii xasanaadka iyo ajarka la labalaabayey waa bishii naarka xoraynta waa bishii ducada la aqbalayay ducada waa la aqbalaa waa bil caafimaad wada caafimaad bay wadataa caafimaad xanuuno dhakhtaradu ay daweyn kari waayaan ayaa bisha ramadaan qofka soomay ilaahay jirkiisa kaga saaraa dhakhtarada adduunka u qiimo badan xanuuno ay dawadooda ay waayeen ayaa laga helay ramadaanka inay ku dhex jirto markaasaa gaaladii caddayd iyo kuwii madoobeedba ay leeyihiin waxaa la isku raacay 3 maalmood haddii bil walba laga soomo xanuunada maanta adduunka dadka la naafeeyey ilaahay dadka waa ka qaadi bay ku leeyihiin kansarka ka mid ah walciyaadu billaah xanuunkan kansarka sarataanka la yidhaah daawadiisa waxaa la sheegay inuu yahay soon haddii la soomo caloosha la gaajaysiiyo xanuunkaasi tilqaa'iyan uu iska dhiman oo u baxaya yuriidu allahu bikum alyusra ilaahay marka uu ku leeyahay waxaan soonka inigu farad yeelay maaha culays inaan ini saarayna hamoodine fudayd baan ila doonaynaa bimacnaa waxa weeyaan camalkaad qabanaysaanna ajarkiisa waa niin labalaabaynaa caafimaad baad ka helaysaan ilaahay baad ugu dhowaanaysaan naar baa laynagaga xoraynayaa toobaddaa laynagaga aqbalayaa naftaad ku tarbiyadaynaysaan taqwad baa iniiga siyaadaysaa waa madarasatu taqwa bisha ramadaan waa taqwadda laga bartaa taqwadda bisha ramadaan hanuunka ayaa laga bartaa isbedel baa lagala hadhaa isbedel waa bil khayrkayga ay xambaarsan tahay laakiin allah ina garansiiyo aamiin dhahada allah ina dareensiiyo waxa ayaan darro ah ninka bisha ramadaan u soo gashay ka faa'iidaysan waaya man xurima khayraha faqad xurim buu nebigu yihi bisha khayrka ay xambaarsan tahay
iyo habeenkeeda laylatul qadarku khayrka uu xambaarsan yahay qofka laga xarimay waa maxruum buu nabigu yiri khayr dhamaantii qofka waa laga xarimay buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam marka seen bishan uga faa'iideysanaa markaas waa bishii ramadaane waxaan kaga faa'iideysanaynaa waa haddii aan hadigii nabigeena aan raacno alayhi salaatu wasalaam tattabic rasuulkeennii baan raacaynaa alayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii baan raacaynaa dadkii wan wanaagsanaa siiradoodii baan raacaynaa oon leenahay maxay bisha ramadaan qaban jireen camalka ugu badan ee nabigeenu ramadaanka uu qaban jiray waa maxay sadaqadana uu bixin jiray baa la yidhi qur-aankana uu akhrin jiray inta badan dabayl la diray oo ummad loo diray inay soo halaagto siday u degdegto ayuu nebigu bisha ramadaan khayrka uga degdeg badnaa waxa uu nebiga waliba inta badan lagu ammaanay bisha ramadaan uu qaban jiray waa maxay waa qur-aanka lianna bishan waa bishii qur-aanku uu soo degay weeyaan waliba habeen laylatul qadriya ayaa ilaahay qur-aanka inoo soo dejiyey min lawxil maxfuud bay malaa'igtu ay ka soo naqliyeen ilaa baytul izzi oo samada adduunka dusheeda ku yaala ayaa malaa'igtu ay keeneen baladiye koo xambaarsan malaa'igta habeenka qur-aanka soo naqlisayna ilaahay waa ka ku sheegay kallaa innahu tadkirah faman sha'a dakarah fii suxufin mukarramah marfuucatin mutahharatin biaydi safarah kiraamin bararah waa qur-aankaas macaanidaas xambaarsan ee tadkirada ee waanada ee mawcidada ee wixii adduunyadan iyo aakhira ku anfacaya kuu sheegaya ayaa ilaahay leeyahay malaa'igtii soo xambaartay ee qur-aankaas soo naqlisay baa la yidhi waa malaa'ig mutiiciin oo ilaahay adeecsan baariyiina weeyaan almaahiru bilqur'aan qofka qur-aanka xariifka ku ah ee qur-aanka xafidsan ee qur-aanka akhriyana maalinka qiyaamaha malaa'igtaasuu la soo baxayaa nebigu waa kii xadiis ku lahaa sala allahu calayhi wasalam qur-aanka ay soo naqliyeen ayay malaa'igtaasi sharaf ku yeesheen falidaalika waa qur-aan waa habeenkii qur-aanku waa bishii qur-aanka kariimka la soo dejiyey weeyaan bishan waa bishii qur-aanka qur-aan marka ayaan qiila wa qaala waqtigeenna ayaanan ku lumin a'immatu lxadiis sida imaam shaafici oo kale allah u naxariistee waxaa la sheegay faqiihu haadihi lumma bisha ramadaan 62 jeer maa la sheegay mise 63 jeer buu qur-aanka khatim jiray baa la yidhi 62 jeer bimacnaa maalintiina mar buu qur-aanka khatimayay weliba dhowr juz oo dheeraadana uu raacinayay habeenkiina hal mar buu khatimayay maalintuna intan un bay ahayd ma ziyaadsanayn habeenkuna intan un buu ahaaye ziyaado ma ahayn laakiin innaka waqtigeenna barakadii baa ka baxday maanta ayaga waqtigoogu barakuu lahaa waqtigay ku xisaabtamayeen caamir bin cabdulqays raximahullah ayuu ninku yidhi sheekh ii joogso markaasuu cadcaadda ii jooji han kuu joogsaday berigaa saacad la eegana dadku ma haysanaya laakiin waxaa la eegaya waqtigaa la eegan jiray cadcaadda habeenkana xidigaha la eegan jiray cadaadda ii jooji kolkaad cadaadda ii qabato ayaa kuu joogsan bimacnaa waqtigaa igu socdee haddaad waqtiga ii joojisid waan kuu joogsan weeyaan haddii kale ma joogsan karo innankana maanta waxay naga maraysaa inaan idhaahno he waqtiga ba'as halkeen kusoo dilaa balaga maray waqtigu waa harwadii ilaahay ku siiyey nicmataani maqbuunun fiihima kathiiru min annaas الصحة والفراغ بو نبي قولي عليه الصلاة والسلام لما النعمدود واوين بو نبي قولي ودادك انتو دبادن ما ركتان اي كدقن يهين ومعناه غفلت اي كقسوغن يهين والله بديه وفراغ انت قعان بنان تهي وانت النوش هاي بالو جيدا انت النوش هاي فراغ بعد هاي ستاي اوغو انت فقير كاتهين فراغ بعد هاي ستا انت الدليرة اتهين فراغ بعد هاي ستا هداد اديقو فقيرة هداد قرآن اخرين كري ويدو ما maalintaad maalqabeen noqotaad qur-aanka akhrin kari ila dadka adduunyada haysta way mashquulaane adoo dhallinyaraha haddii aad ma aragtaanay aad qur-aanka u fadhiisan weydood khatimi weydo maalin walba ama toddobaadkii ama 5tii cisho ama 10kii cisho aad ku khatimi weydo ma marka islaan iyo ubad iyo mas-uuliyad ay ku fuusho miyaad qur-aanka akhrin kari doontaa
adigoo faraaqaysto maanta nool oo adduunyada jooga haddaad ka faa'iidaysan weydo bisha ramadaan iyo cibaadada iyo taacada ilaahay aad kordhin weydo ma marka qabriga lagu geeyaad cibaadaysan doontaa may daarul amal waa halkan qabrigu daarul amal maaha qabrigu waa daarul jazaa daarta abaal marinta weyn qabrigu halkana daarul amal la yiraahdaa marka labada nicmadooda ilaahayna siiyay yaanan dayicin laba shay bay inaku maanta waan la dagaalanaa waqtiga sibaan la dagaalanaa marna waan caynaa marna waa soo dilaa dadkeena waqtiga marna way dilaan marna way aflagaadeeyaan waqtiga markaad dilaysid waxaad ogaataa yar fadhiisiye yar keer fadhiisadeer waqtiga markaad leedahay han soo dilo waxaad ka dhigan tahay waa raiisul maalkaagii baad dilaysaa imaam ibn qayyim al-jawzi allahu naxariistee baa yidhi waqtiga oo la dayacaa waxa uu ka adag yahay dhimashadu ka daran yahay inaad dhimato iyo inaad waqtigaaga dayacdid waxaa daran inaad waqtigaaga dayacdid lima wuxuu yidhi waqtiga oo dayacdid waqtigaaga haddaad dayacdee waxay ka dhigan tahay ilaahay ku abuuray baad ka go'day aakhiradaadiina waa dayacda bay ka leedahay iyo ka dhigan tahay laakiin haddaad dhimatid adduunyadii baad ka go'day ilaahay kamaad go'in mawdku adduunyadu kaa gooyaa laakiin waqtigaaga dayicidiisu ilaahay aakhiradaadii buu kaa goynayaa ogow marna inaku waqtiga maanta waan dilaynaa oo annaka maanta waqtiga halkeen isku soo dhaafinaa waqtiga halkeen ku soo dilaa marna waxaan idhahnaa waqtiga naabihii cuna sida ay galay aniga waa meesha ilaahay uu lahaa xadiis alqudsi yu'dinii ibnu aadama walam yakun lahu dalika yasubu dahr wa ana dahru alamru biyadii uqallibu leyla wannahaar baa ilaahay ina aadan baa idhibaaya oo sidee ina aadan ii dhibaya zamankay aflagaadeynayaan baa ilaahay yidhi zamanka markay aflagaadeeyaanna amarku anigu gacantayda ku jiraaye zaman maaha waxa waxba badilaye aniga ayaa xaalaadka bini aadanka la soo darsaaya anigaa keenayoo badilaya baa ilaahay yidhi zamanka aflagaadeyn zamanku waa ilaahay zamanku waa ayo allah dadka inta badan haddaad waraysato waqtigaasay wada haystaan ilaahay waqtigaas sidaa ii galay waqtigaa halkaa ii dhigay waqtigaa iga jeestay ree hebel waqtigaa la haya maanta waa waqtigoogii waqtigaa ii kaa qabtay war ma yidhahdaan yasubu dahr zamankay aflagaadayn ilaahay baa zamankuu caayaya zaman meesha ma jire amarku xaggaygu ka imanaya baa ilaahay yidhi oo wixii xaalaad inala soo darsaaya axwaal inagu imanaysa anaa keenaya zamanku ma keena baa ilaahay yidhi anaa keenaya abaar hadday timaado ilaahay baa qadaray barwaaqa hadday dhacdana ilaahay baa qadaray meel hadday gubato ilaahay baa qadaray dad hadday caydhoobaan ilaahay baa u qadaray dad hadday maalqabeeno noqdaan ilaahay baa maalqabeennada ka dhigay xaalaad adiga isku nisbe wixii dhibaato kugula soo darista aduu isku nisbe laakiin waxaad ogaataa shar iyo khayr waxa uu ka imanaya waa xagga ilaahay marka marna dadku zamankay aflagaadeynayaan marna waxay leeyihiin zamanka halkeen ku soo dilaa zamanka haddaad aflagaadayso waxay ka dhigan tahay allihii ku abuuray baad afka ku taagaysaa markaad leedahay zamanka halkeen isku soo dhaafiyaa oo waqtiga halkeen aan ku soo qaadanaa markaad leedahayna waxay ka dhigan tahay tharwadii ilaahay ku siiyey ayaad cidla ku soo daadinaysaa cid kaa qabanaysana ma haysatid imaam xasan albasri allah u naxariistay baa odhan jiray addoonka ilaahay inuu u cadhooday waxaa lagu gartaa waqtigiisa ka dayacma buu yidhi haddaad aragto addoon waqtigiisu dayacan yahay mar walba dayac waa maxay waa markuu qofku ku jiro laa yacni waa maxay waa markuu qofku ku dhex jiro shaqo aakhiradiisana aan waxba ka taraynin adduunyadiisana aanan waxba ka taraynin shaqadaa laa yacni baa la yidhahdaa qof 24 saac laa yacni ku dhex jira haddaad aragto waxay ka dhigan tahay addoonka ilaahay baa u cadhoonaya ka dhigan tahay waa calaamaadkan lagu garto inuu ilaahay addoonka u cadhaysan yahay haddaad aragta maxay addoon waqtigiisu mar walba uu dayacan yahay meel dayacan buu fadhiyaa dad dayacmay buu la socdaa wax dayacan buu waqtigiisa ku bixinayaa dad xun buu la saaxiibayaa meesha uu fadhiya ma garanay waxay tahay uu dayacan yahay markaas addoonka ilaahay uu khayr u la rabo
ورالي وكيهين وحا لغو قرتابي علماء يرادين ميل وناكسن با إلهي مرور بوقتي سكو بحيا هبل مي هبل مساجد كو حلقة جوغا هبل مي هبل قرآن بو آخر السنة يا هبل مي هبل دعوة دي دين تو كشغين يا هبل مي هبل حرم كو جرا هبل مي هبل أبيه هو يدي بو أذيق يا هبل مي هبل قرابة دي سيبو ما انت وحوق يوصو أذيق يا وحريرين يا هبل مي هبل مدرسة دو معلن كي ومضو علمي أردقا هبل مي هبل مساجد كحلقة لقا هلاي مقاحي لقا مهلو هذا أردت قف خير مرول بكون مشغول سنوحي كدق انت هاي قفك إلهي بخير لدونايا إلهي خير كهي نور دبير أيو الله ينوم معاني خيرك الله ينوم معاني الله أكبر لذلك علماء الإسلام وقت جاي قرتين قيمه عامر بن عبد القيس أيها النكاس وأنك مالين تودي من أيو أويب على الجويري مركز الله ملايين ودي مشهد كبقايو مركز الجويري محل أويسا من عابدة ومقالة أنا بصر لي عابد كي قال له أورنجري أنت سو جهاد نوات كقيق بشو دين تهلكن كيجا ما الفي عم بعد كقعدة محل أويسا بالجويري لبى شيء باللما أويب ودهرت يجا قرأ لكن لبى شيء لبى عمل أو ما أنت يجا قايا أو دب دم بوار كي مال أويا بكويري لبى دان لأويب بني شيء بويري عبسي أنا آخرة كبقايا لما أويايو الدنيا أن كتجايا جعيلة أنو قبنا لما أويني لكن لبى عمل وأدون كدوشة أن كو قبن جري أي حدان ما أنت عند أنت يجا قايا سيبود والله بدي الصوم في الصيف والقيام في الشتاء حل قدولك كل اللي هي صوم كأن صوم جري يجيلال كدحنت صلاة الليل كبيها قبو أن كويس سنة يدحنت دحدة أن كنت كنايي لبدا عمل بايقا قايسو دبدا بانو أركينو لبدا أن لؤي والله بدا سأقاد بكو يدين وقتي قوغي كفايدي استين انت أدونك جوغين الصوم في الصيف كليل لكم مركو ياهي الصوم كأيك معانا شريت ولا لو عشان إمك هرجسان ونلا جوغا ما أنت لا صدح ما أنت لكم وبير في عينه لكن لا بدن عشاه روير كله لكن أنكم مركز جبوتي كأي من هرجسك كليل كيجو أنك وحنو حسابا يا قبو ودري هرجس واحد لكم هو كليل ما أنت مركز أقول ور كليل ما هنا كليل إنكم ما دركين إلهي كما كان قالوا كليل جبوتي ويا لا بوصاصي بربري لبي صدن بوها أما أفر صدن ما لحظ هل كان مركو أفر صدن لحية صدن ويا حي جبوتي واللحية أفرتن هل كان مركو إنك عجينة صدن جبوتي وأفرتن أما دوري أفرتن وعجينة يا هل كان مركو تضبيه صدن قارو جبوتي وحوق قارا السقالي وأفرتن بو قارا هذا والله صوما نقص عابد كير زاهد كهاي التابعي يقولنا وحوليه هي ما أنت هداي نفته يقبح ولا بعمل أو يقجو أيضا دبدا بواركين لبدا درت ود بان لقويا ولا بديه كليل كان حقاقة عن صوم جري الصوم في الصيف يجيلال كده حنتو مركي جرتو صلاة الليل كانوا كعجرين تو كان جري ما دبدا بواركين بيودي رقاسي وقت جاي قرتين قيمه هيسا لأنه يكفى إيديستين ثابت البناني رحمه الله تلميذ وحوها أنس بن مالك أنس بن مالك باكو رجل دويبة دا بدي يربع تهي بكو رجل ثابتو هذا النبي محمد كو أركي لهانا والله واكو جعلان لها بكو يلي إربتيس يورع عيسى يتقوديس يعبادة بنديس يفهم جيس يسدو علمك وقرب يا صحابة مركو أركي والله هدو نبي محمد كو أركي لها واكو جعلان لها بكو يلي مالنتو ثابت البناني ودمن دونو أيا إنن كي سيبا دولي مدي لأن مركاس الله قنا توحيد كي سأل الله الله قنا قفك مركو دمان أيو ده لا أوران مايو والله قدول دواقع لا إله إلا الله والله ما غشينا يا مركاس سو مركا كاقد دبيداد إنك زمن كينا نشا خايد اختر زمن كان إلهي كبر ينا تقول دمتان بودي ها توحيد كاد مدابين لك على دق الله ما يبودي
waayo mar alle markuu qofku ay arkaan inuu sankaraad u yahay halkan ay wax ka gelinayaan oo halkan ay ka daloolinayaan oo sankay wax ka gelinayaan halkan ay wax ka gelinayaan halkaas xaan kale wax kaga dhaadhicinayaan labadan ay ka daloolinayaan xaguu tawxiid ba ka haleeli qasabada wada gashanay nin baa yidhi ilaahay ka magan galay buu dhakhtarada zamanka inaad ku dhimataan ka alla barya buu yidhi waa aafo waa cuquuba buu yidhi runtii thaabit albunaani isaga oo sankaraadkiiyo inankiisu la dul yimiduu ku yidhi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah saasuu eegay aabbo inankaygiiyow wardigaygii aan akhrisan jiray ayaan ku mashquulsanahe hayga mashquulin buu ka yidhi يعني القرآن كي راتب كأنو لها مالي والبين أنا خرجتو نقول شو ذا ترتيب سنة ديك مالي والبقرآن كي إن بك آخر السنين أفرد 20 مر ختمين غرصد 11 مر ختمين مركا ورد جيجي أنا خرنجري مال الله أهابا كون مشغول سنة هي حقيقة مشغولين بكويري السوق القرآن كي سي آخر السنة نفط وكذا عضي بالليل كل مرء يبعث على ما مات عليه qof kastana maalinkii uu dhimanayay wixii uu ku dul dhintay ayuu qiyaamaha la soo bixi doonaa buu nabigu kaleey salaatu wasalaam hadduu quraan akhrinayay isagoo quraanka akhrinayay buu soo baxayaa hadduu sujuudsanaa markay naftu ay ka baxday isagoo sujuudsan buu soo baxayaa hadduu dhikri sameynayay isagoo laa ilaaha illa allah buu soo baxayaa hadduu jihaad ku dhintay isagoo dhiigii uu ka daadanayo dhiigii waliba uu qoyan yahay ayuu soo bixi doonaa nin walba waxa uu ku dhintay markuu dhimanayay ayuu qiyaama la soo baxayaa buu nabigu kaleey salaatu wasalaam حال مركب ما أنت لا دمنا إنك إن شاء الله لا إله إلا الله لا دمنا ور إن شاء الله هذا حال دمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا إله إلا الله أكيد النبي يقول أكثروا وربضية جددوا إيمانكم إيمانكم جديدية مركب الصحابة رادين يا رسول الله إيمانك سيدنا لو جديدين يا مركب النبي يقول عليه الصلاة والسلام أكثر من قول لا إله إلا الله هذا قولك لا إله إلا الله بديه كعل علي أبو رسولك يدي واحد عرب كجعل علي ساعة قلبي وقلي واحد دكت كبة دسا مقل كذا قلبي وقلي واحد إيش الدايم الشديد سكبة دسا قلبي ويا دوبا وقلبي وقد دقي واحد أنت بدن أتكفكر تانا قلبي وقلي دونا قلبي لذلك dadkii hore quraankaas ay akhrin jireen bisha Ramadaan waxay uga faa'iideysanayeen bisha Ramadaan ay u arki jireen inay bisha dambe Ramadaan sanadka dambe aysan gaadhaynin ونولان دونا ما هو حيكون حساب تميين وحيكون حساب تميين يكو بريتو لو ويان مالنتان دمناي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل نبي عليه الصلاة والسلام وكي ابن عمر قربها انتو نبي عبد الله بن عمر انتو قبتي أي نبي كويري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل بنبي يا ابن عمر الدنيا دوشي هذا واحد كواتا قف غريبة غريب ومحي وقف قدل كيسي أنا جوجين كل كيسي ما جوج مقال هذا مسافر بكويا ضنتو يمدينو كذا ما يستمو يعني دك فكر مايو مال قبسة كفكر مايو أو عابر السبيل كنا معي وقف كهيل وضمر عليه مسافر كا ابن عمر هذا الكامر كون نبي كم مغلي وحو أورنجري نفتي سوكو أورنجري إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هداد قلبي ستد وابري هالسوقن هداد وابري ستدنا قلبي هالسوقن انت العافمات كقبتنا وقف إذا انت أند بكون انت النوش هينا وقف إذا انت أند من وماشى إنك يا أصحاب النبي وأنكو كلا دونا يكو حديث مرق النبي كم مغلان حديث كم مرايض وكلا انت سر دقام أي مركا نول بو حديث كاسكو إيجي ماكو عمل فلايا مسكو عمل فلا مايو حديث كان الله شيء ما يمدي مسمى إيمان ماكو دغما مسكو ما دغمو آيات قرآن هذا النبي كنا كو صدقتو آيات أساس اسكو رجع جرين يكو مركا بريتو لها كو حساب تمينا ما أنت هذا يقول هذا كفايديسو كل دم بالرمضان كل دم بان قاعد يا هيسورن
bisha Ramadaan ka faa'iideysa maxaad kaga faa'iideysanaysaa quraanka akhriskiisa badi maxaad kaga faa'iideysanaysaa dadka muslimiinta iska cafiyo iska saamax maxaad kaga faa'iideysanaysaa haddii hantiile ilaahay uu ku siiyeyna hantidaada bisha Ramadaan dadka ducafada wax uga qabo oo dadka ku afuri habati mar haddaad hayso walaalka ku afuri kabashacana oo la kabada haddaad hayso walaalka ku afuri ajarkiisii baad la qaybtan buu nabigu ka yidhi soonkaaga ilaasho oo ka ilaali laqwiga oo ka ilaali xanta oo ka ilaali cayda oo ka ilaali beenta oo ka ilaali meesha xunaad fadhiisanayso oo ka ilaali waxa xun la daawanaya maanta man lam yadac qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu markhatib bana laha ninka maraga beenta aan ka tagin buu nabigu leeyahay iyo amalka sharcigu inkiray ninka aan labada iska daynin buu nabigu leeyahay aaraad iyo gaajo inuu isku dilo ilaahay danka mala buu nabigu leeyahay gaajadaada iyo oonkaaga ilaahay wax dan oo ilaahay soonka dhanba ilaahay dan ugu ma jiro soonku adu dantaada weeyaan salaadu adiga dantaada soonku adiga dantaada cibaadadu adiga dantaada quraan akhrisku adiga dantaada zakadu adiga dantaada xajku adiga dantaada fadhiga miskiidku adiga dantaada diinta barashadeedu adiga dantaada man amila salihan falinafsihi amal wanaagsan hadaad ka shaqayso de naftaada uga shaqayso ma naftaada ilaad wax qabanaysa ma jiro marka ilaahay haddaad ka soomaynin ficilka xun iyo qowlka xun iyo dadka xun la fadhigooga iyo meesha xun ee la fadhiisanayo iyo markhaati beenaalaha maragga beentaad furayso haddii intaaba aad ka soomayniyo wixii la halmaala haraad iyo gaajo aad isku dishaa wax ilaahay caza wajalla maaragtaan uu kaa abaal marinaya ma jirto soonka ilaali markaa waqtigaaga ilaali oo camal wanaagsan ku ilaali oo bisha Ramadaan bay culimadu leeyihiin ilaahay wuxuu yiri marka ilaahay la'allakum tattaquun taqwad baa la dambaysiiyay ya ayuha alladheena aamanu ku ilaahay nabiga rumeeyay iimaan baa la inoogu dhawaaqay oo muuminiin baa ilaahay yiri waa muuminiinta la hadlaya soonka waa lagu farad yeelay ma hay ninkoo kaliya dadkii naga horeeyna waa lagu farad yeelay gaayaha soonka laga helay waa maxay natiijada soonka laga helaa waa maxay shahaadada soonka laga helaa waa maxay ee laga qaataa waa taqwad baa laga qaataa alla ka cabsi bishan taqwad inay ziyaada la doonaya markaas taqwad goormay taqwadu ziyaadi waa marka bisha Ramadaan adigu aad samaysatid jadwal nidaam samayso بولوجرام قف وعينه سمست برنامج وقت قاعد هدانا الجدول أنا سميسنا وقت قاعد أنا النظام نولش هذا ولا واحد كوجري سخال خلبي كوجري إلى عيبان نولش الجدول وسميه صلاة دي شو وقت بالغو سميه وجدول يومي صلاة قارنا هبين كيف يقلان قارنا مالين كيف يقلان إلهي وكوجي مركا إنها بيزياتو مشغولاتو بني آذناتو هنتي هؤلاء مشغولية دي أبدي مسؤولية كل صارن تعي صلاة دي والغو كلا ديري بلو فرسو فجر كي الظهر كان تا وقت ولا حيس ظهر يا عصر انت ولا حيس عصر مغرب انت ولا حيس مغرب عشاء انت ولا حيس عشاء هذا أنا مرة ثانية فجر وقت انت لك بقول حيا وقت جاي قال له حددي صونك وقت بالله سمي ساعة لا ساعة طلوع الفجر إلى غروب الشمس حشي وقت بالله سمي مالمولية حشكنا وليال 10 مالي زكدي وقت بالله سمي حول سند ولما معيار قونية مركيتها مقدار قونية إلهي بان ولش جدول كوجو سميه هذا قلنا وين مالين كي جدول كاجا وين جدول كاجا مالين لها وين سميستا حلقة وصلاتي حلقة وقرانكي حلقة واستغفارتي حلقة وخدمة الريركا حلقة ونصشدي حلقة ووالدك أديك جوجي والدك أديك جوجي لو أديك والدك
لقوا تراويح دي من قام رمضان وخصوصيات بشهر رمضان أي لا بشهر رمضان تراويح بالله سعوتها تهجد قاري بشهر رمضان لا دحي من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشهر رمضان نيكا كعب والنبي يقول يا كعب مساجد قد كنت كنيسد سديد بالغوتو كذا يصدح وتريا لا دميسو مسكيد كحافظ هذا ودو صدح يا لباتن بالغوتو كذا لباتن تراويح يصدح وتريا لا دميسو مركز هذا من قام رمضان فضائل كيغا رمضان كنيكا كعب والنبي يقول يا قيام رمضان وتراويح نيكا كعب أما وتهجد كنيكا كعيت وكذا والنبي يقول يا دمبيغي سي هورو دنبا لاغا دافا بو رسولكو يري وانيكا كعا علماء waxay xadiiska ku sharxeen waa masaajidka aad ku tukanaysa imaamka la kac salaada la dhameeyay mar kaliya isaga ha ka bixin dhaxda ha kaga tagin ramadaanka awalkiisi magaalo Karachi leeyahay ku soo soomay saddex xaafadood baan markaa ayaan saddex masjid baan kula soo tukaday dadka ilaa markaad safartid waa inaad eegtaa dadka maxayna dheer yihiin inaguna maxaan dheernahay maxaan kaga fiicannahay maxayse iyakuna nagaga fiican yihiin dhalinyartii baan ku yidhi saddex xaafadood saddex masjid oo saddex xaafadood ku taala saddexdaa habeen kala geeya masaajidka habeenka horeysay ay geeyeen 23 baa lagu tukanayay waa la tukaday salaadii cishaay baan eegay waa markii laga baxay malaha dad afar ama saddex qof oo odayaal oo da'wa weyn oo kaadida aan xajisan kareyn baa kacday markii cishaaygi tukadeen oo iska baxeen masaajidkaasi gudihiisu uu buuxaa daarada dambana uu buuxaa geedaha iyo wadooyinka agtoodana balal sal caw intoo la dhigay buu buuxaa la saddex iyo 20 rakacadood mar alle marka laba rakac la kacaba xaga damaan eega waa buuxaa masjidkii hal qof ma baxayo saddex iyo 20 imaamka la dhameysteen hadana habeenkii labaad waxay geeyeen masaajid 12 rakac lagu tukanayo oo fiirsaday cishaaygi baan ka baxnay waan eegay masaajidku waa bud ma aha masjid inta la walibana waa jawaamic saddex dabaq afar dabaq dibadda marka anu waxaan ku tukadaa gudaha horaan u sii tagaa xagga baan eegay barandadii way buuxdaa dushii way buuxdaa dhinac walba way buuxdaa 12 rakacadood ayadoo malaha dad yaroo iska cudur daar leh ay ka baxeen mooyaane boqolkii 9 dadkii musalliinta ee salaadii cishaa imaamka la bilaabay oo la dhameysteen haddana waxaan eegay masaajidkii kale saddexaad 23 baa lagu tukanayay sidii si lamid ah markaskan ku tukada xalay habeen hore laba habeen oo joogo waa ka cishaaygi markii laga baxay kala badba masjidkii baxay 8 rakac markii la tukadana kala badba baxay 20kii u dambeysay baan eegay marka waa safiya badba ku soo hadhay aan soo baxnay salaadii markaan dhameysanay dibadda soo marnay magaalada xagga dhakhtar baan yar tago qof ku jiro aan dheerayn halkan caga weyn ama dhakhtarkii halka magaaladii baan u fiirsaday saasa dariiqada loo fadhiyaa ummadda ma dayacna mise ma dayacno waa bishii ramadaan waxaa laga yaabaa ilaa 12 ilaa 1 habeenimo dadku dariiqa inay fadhiyaan ay sheekeeyaan maxay ka sheekeynayaan shaqaan loo diray bay ka sheekeynaysaa Soomaalidu magaalada aan sheegayo waxa ku nool 30 milyan oo qof ku nool magaalada Karachi leeyahay xaafad kaliya gulshan iqbaal leeyahay waxa ku nool bay dhalinyartu ugu yiraahdeen 12 milyan waanu fiirsaday mar alle markaan masaajidka culimada iyo imaamiyada iyo asbaranayna iyay weydiyaan min ayna markaas ay min Djibouti marka Djibouti waa xagee Djibouti ma garanayaan moogtahay marka Soomaaliya dagaalka lagu bartay moogtahay هاي صومال صومال معروف صومال معروف
magaalo waan u fiirsaday waxaan idhi waniyo juqraafiga ma barataan mid baa igu yidhi may dadkan quutal yoomkooga inay ritaan mooyaane waxa adduunka ka dhaca ma baha lala inay waraystaan innakana soomaaliga hee habartaa ku jirta habarta aqalka fadhidaa siyaasadda caalamka la socota ha u dirtay bal sheeg dan la'aan baa kuu diratay dan la'aan firaaqa ina dilay innaka gacan bannaani baan haynaa meel wakhtigeennii markaan adduun iyo aakhiro labadii kaga faa'iidaysan weynay waxa shaydaan baa inoo dirtay caalamka inaan la soconno waxa ka dhacaya wax dantaadana maaha inaad caalamka la socotaa dantaada maaha aqalkaaga waxa ka dhacaya la soco intaad caalamka ka sheekaynayso aqalkaaga ilmahaaga bishaa rabadaan imsay qur-aan akhriyeen taraawiix ma tukadaan xaaskiya gabdhuhu taraawiix aqalka ma ku tukadaan taasaa la rabaa inaad ka shaqayso adigu dadkan aad mas-uulka ka tahay baa la doonayaa inaad bishaa uga faa'iidaysid oo wiilashaadana gacmaha aad soo qabato miskiidka aad tiraahdo waryaa taraawiixda igu garab tukado ila dhammaysta islaanta iyo hablahana aad ku tiraahda inuguna miskiidka xagga haweenka kaalaya dantaadu waa taas waxa caalamka ka dhacaya inaad maqaaxyaha kaga sheekaysaa dantaadii maahina waa dan la'aan shaydaankaa sida kubadda inoogu ciyaaraya maanta innaga marka allah inoo dambi dhaaf danteenna allah ina garansiiyo marka bishaa rabadaan insha allah dhahada inaan ka faa'iidaysana soo diyaar ma nihin taraawiixda habeen walba inaan dhammaystirno qur-aanka maalintii juz qur-aana akhri hadduu kugu adiga juz sidaad bisha rabadaanba mar u dhammaysid haddaad ka raysad 2 haddaad ka raysad 3 haddaad ka raysad 4 5 juz intee lagu aqri karaa ma taqaanaa waa saacad iyo 45 daqiiqo 5 juz way kula badan tahay adiga 5 juzayna kula badnaan haddaad waliba si yaroo tartiiba aad u akhrididna waa 2 saacadood oo keliya haddaad dadaashid qur-aanka subaxda haddaad bilowdid waxaad dhammayn kartaa salaada maqrib haddii habadh iska badaaba maalintii 2 juz ama 3 juz 10 cisho mar qur-aanka khatimi 10 dambe markuu soo galana yar kordhiyo maalintii 5 juz oo qur-aan akhriyo 6 cisho mar qur-aanka dhammeey ilaahayna bari oo ku ducayso ila qur-aanku waa kalaamkiisii man qara'a alqur'aana falyas'al illaaha bihi baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma haddaad warninka qur-aanka bartayow ee qur-aanka akhrinayayow qur-aanka ilaahay wax ku weydiista buu nebigu yidhi aakhira zamanka dad baa iman doona qur-aanka intay bartaan dadkay wax ku weydiisan doonaan buu rasuulku yidhi qur-aanka waxaa loo soo dejiyey in ayo lagu baryo in ilaahay lagu baryo in ilaahay lagu dhowaado in ilaahay lagu raalli geliyo haddaad qur-aanka akhrisatid xadiiska waxaa laga fahmayaa haddaad qur-aanka akhrisatid oo qur-aanka markaad khatimta aad ducaysatid ducadaas waa maqbuul baa laga fahmaya xadiiskaas man qara'a alqur'aana falyas'al illaaha bihi baa nebigu yidhi ninka qur-aanka akhriya qur-aanka ilaahay ha ku baryo ha ku weydiisto ninka qur-aanka dadka barana qur-aanka dadka yuuna ku weydiisanine qur-aanka ilaahay waxa ku weydiisto ha yidhaahdo ilaahow kalaamkaagii baan anigu dadka aan barayaaye arsaaqadana adigu da ii waasici isagaa ilahay marka arsaaqada ku waasicin inaad masaajidka ku nagaataa waxyaabaha kuu fudaydinaya bay ka mid tahay bisha raba inaad ka faa'idaysatid haddaad noqotid xamaamatu lmasjid xamaamku marna uu foofaa marna qafaskiisu ku jiraa mu'minku waa caynka marna soof arsaaqad xalaala yaa rasaaq yaa fataax markaad soo rawaxdidna masaajidka soo gal min casar iska soo gal ama duhur iska soo gal ilaa iyo taraawiixda halkaa ku dhammayso 5 juz oo qur-aan aad akhrin wiilashaadana isaga fadhiisi aabba halkan fadhiiso adna akhri waa bishii qur-aanka masaajidka oo lagu nagaadaa waa asbaabta kuu fudaydinaysa inaad bisha rabadaan aad ka faa'iidaysatid weydii culummada mubtilaatu siyaam maxaa soonka jebinaya maxaa soonkayga iga dhaawici kara ajarkiisa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun bishani maadaama soonku fariida sharciya uu nagu yahay oo faradan aad xambaarsan tahay masaa'il alcilmi ilaahay culamo rabbaaniyiina ayaa ilaahay masaajidda inoo dhex dhigaye culammada ku noqda weydiiya wixii aad kala saari weydoo dhan culammada weydii
على جهل إلهي هكو عبودن وإن تكو عبودا إلهي على علم إن على علم إلهي هكو عبودانا وإن يسألونك وإن الله تمادا يسألونك وصفة الصحابة إلى هايان نك طالب العلم يقولون حشودا معها وإن علماء ويديو وإن وحبرتو لبن إن وحما برتان بالليلي وفق الدين تسكوين السيد هذا منو أنت لا يقبل الدين هذا شيخ وحويدين يدتك الدين برشاد هذا كحشودا لبدا وحما برتان بالليلي وحكى له بشار ربنا الله ينقض دونيا إن دتك مسلمين تؤيس السامحان صافي لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكيلها مالين كستو إسنينا هي مالين كستو خميس أعماش أضمه أي قبطان ونكسن بإله الهرجية لبا والله سوء عليا دم بيقول الله مرداف كي مد وكيله وشريكي والعياذ بالله منا وحويان والله بدي عملنا وحويان والله بدنا نين يدحدود أي جرت عداو على الحمو أورك وحس اسكو هيين لبدانا إلهي وحول هذا كتاب كوك أكتدها كفرنا علي عمل كوك الدم بيقول رافع ما يهه إلى دحدود إذا سوء عفين إذا سوء سامحيان dad baa laga yaabaa inay jaarkeena asxaabteena hadalna dhexmaray ka aamusnaan u tago waxaad ku tiraahdaa walaal waan ku cafiye adiguna sakay cafi haddii markaa isagu uu ku diido adiga markaa xilka uu ka wareegay ugu adiga amalkaaga uu soconaya ilaahay xaqiisa marka si amalkeena ilaahay nooga aqbalo bisha Ramadaan ducada la inooga aqbalo salaada la inooga aqbalo soonka la inooga aqbalo quraankeena loo aqbalo sadaqadan bixinayna loo aqbalo ilaahayna naarta uu inoogu xoreeyo waa inaan dadka muslimiinta walaalaheena qalbigeena ka sii daynaa insha Allah dhahda bas saamaxna kulligeen kii aad gaari kartid cafi wal aafina an الناس dadka dad iska cafidid adigana ilaahay baa ku jecel markaas wallahu yuhibbul muhsinin taad markaa ku beeri cafisku ciyaar ma wasifo إلهي بكسفه بالصفة داس العفو وأسماء إلهي سماه غفور يا عفو وحال در بعلماء دليهن عفو وحال در غفور ودافع عفو ومحي وندافع دب دنبنا وحا ودافع كوسو هذا القادم ما يبالي لذلك هنسامحنا سيدنا كريم بن إسرائيل ها مالقبين كها النبي قال مشيخ عليه الصلاة والسلام من عجيبة إن مال إلهي سيء أولاد بإلهي سيء عافمات بإلهي سيء نعمة دي أدونك إلهي دين عوال بوكدقي لكن النفتي سكو إسرافي بوها مع عصبا هل وناقولها محوها دادكو حول الديمين جري دادك الدين كمركا وحي علينا وكقادن جري وحي الدين كعلين كري واينا iska cafin jiray wixii mudada noo kordhi ku yiraadana wuu kordhin jiray baa leeyahay maalintuu dhimanayay buu inamadiisa kala dardaarmo yiri anigu wax wanaaga oo ilaahay aan la hortagiyoon haysto khayra ma jire dadka aan wax siin jireen wax deymin jirnay sidaanu la mucaamaloonay oo la mucaamalooda buu ka yiri kii mudada noo kordhin yiraadana uu kordhiya kii iska bixin kari waayeen iska cafiya kii soo celiyana arka sidaas anigu ogahay buu oo dhintay ninkii إلهي بالله رجوجيه إلهي باكويري أدون كانوا النعمة متين ها إن أولاده يقول نعمة ها إن عافماتك يقول نعمة ها إن رجالها يقول نعمة ها إن برواقده يقول نعمة ها ما أنت محلاتي من دبل شيء أحبا نعم تادي أردن أديك أنكو عاصية وخير وطائقه الريانة مجرو وخير إنك هذا صدق ما قرنا يا إلهي مرقاس إلهي أدونك هذا نمتهد أدومها يقدي من جري سدا ولا معاملون جري ها وانا هاي مال انت دمن يسي أدونك إنما دي صدر دارنك أوجي مدير أدومها دينك أنسينو وحي علين كري ويسكع عفية يدين نمتهد أنا وأكو عفية جنة قلب إلهي كويري عيار مها مركز ونسعى فينا إن شاء الله ونسكت عيننا سو ديار منهن xilliga afurku uu dhow yahayna dadku xilligaas qaflad badan bay ku jiraan waa marka shantiya barka
ay gaadho aadaanku uu ka dhiman tahay 45 daqiiqo ama nus saaco ama 10 iska dheh xilliga ducada waa la aqbalaa kulligeen baahi waan wada leenahay Soomaa ninba meel baa laga hayaa ninba meel buu ka taahayaa ninba waxba ka maqan oo doonaya in loo dhameystiro baahidaada ka dabooli kara waa Ilaahay mid kale ma aha waa inaad ogaataa saacada Ilaahay la helaya nabiga ku sheegay saacadaas uu nabigu ka yiri xiina yuftir للصائم با نبيغو دعوه نيكا صائمك اي صومن دعاء لا اقبل ايا اسغنات حلما حلغا افركو او دو يهو افركو دول جوغو حلغاس قبلده او جيسو دعاء marka ducaysanayso amaanta ilaahay ka bilaab salliga nabiga ku xijisi sallallahu alayhi wasallam ducooyinkan waaridada ee quraanka ilaahay uu kaga warramay ducada anbiyada ay quraanka ku taala taa ku ducayso deedna ducadii nabi maxamed uu ku ducaystay hadana raaciyo ku ducayso hadaad af carabiga kugu adag yahayna af Soomaaliga ilaahay waxaad doontay khayr ku weydiiso insha Allah afurku markuu soo dhawaadana waxa lagu afuro nabigu waxa ugu fiican waa timir hadaa timir weydaana وبيها عب لبدا سبع عافماد با كجري اوغادا لبداس نبي محمد او كو شيغay عليه الصلاه والسلام داودي وحي مانتا نفقه جيركاغا كبخاي او دن تمرتا markii ba soo celinaysa hadii aad weyday buu nabigu wada timir xasawaat in yaro xoga heero biyo yar haddaad biyo weydaan buu nabigu dhahay marka saddexaad ka bashay roocana dadka qaar ba sambuusa ku bilaaba ilaa dacar ku wada kacdo war haka bilaaba sambuuse saddex afar timira iyo xoogaha laba koob oo biyo si fiican u cad waliba biyaha qabow ee aad u qabow iska ilaaliya biyahan caadiga normalka iska cabba dadna ilaahay ha ka daweeyay bahalkana sigaarka markuu kobasho biyo markuu ka badaba xabba sigaar u shidan Allah ha ka daweeyo dadkana waxa ilaahay uga baryanaa bisha Ramadaan waxa xuna qurunka ilaahay inuu ka raaciyo aamin dhahada insha Allah intaasaan insha Allah wixii ilaahayna waafajiya ku soo gaabinayna dambigeena Allah ha dhaaf dambiga waalidiinteena Allah ha dhaaf amnigan Allah inoo adkeeyo dhibaatadii waaga dhaweetay nagu dhacdayna ilaahay badiil ka khayr badan Allah inoogu bedelo badiil ka khayr badan Allah inoogu bedelo kulli khayr bu ilaahayna la doonaya insha Allah dhahada khayrun ba ilaahay laga rajeeyaa dadka ehelada qaraabadeena walaalaheena masiibada waaga dhaweetay ay ku dhacday ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ciwad khayr badan ilaahay ugu bedelo dambigeena Allah ha dhaaf dad badan oo ehelledeeno xanuunsan baa jiray oo ducadoona ilaahay mid walba halku ka buko caafimaad sariic Allah ka siiyo amniga iimaankan Allah inoo ziyaadiyo muslimiintana meel joogan muwaafaqeen midnimo Allah siiyo habeen walba wuxuu ilaahay leeyahay adoomo naarta ku xoreeyay kuwii naarta lagu xoreeyay Allah inaga dhigo isma hadeen kar Allah ina hadeeyo Allah inoo naxariisto Allah inoo dambi dhaaf dad badan oo deyn lagu leeyahay jiray deynka Allah ka bixiyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaha Allah inoo toosiyo diinta iyo taacada Allah inoogu toosiyo adduun iyo aakhiro ku liibaanana Allah inaga yaalo sallallahu alayhi wasallam مولانا أبو رايه إسلامي منو مړو محمد نو سو دیرو هذا ما